هسي قوليسي أنا عن قاضي يعني مباح أي نقطة وحقها درين هذا قاد شعار سنكاس كلا على نهارستين هاش كاس يعني ذكي واقص وحس إنك وهاي دادس وهاي دادس وهاد لكن waxa fiican markii aad adiga koob soo qaadaysid inaad xustaa qofkii iska lahaa inkastoo heeskaas abwaanki samee aqoon u leen laakiin Cabdi Qaadir waa inuu leeyahay ku soo qoraa laakiin abwaanki samee ila xamiistii aqoon uma leen waan ku soo qori lahaa erayadii ku jira waxaan rabaa inaad wax yar nooga taataabatid gabar yahay dareen dood caashaqo dawa aan lahayn haygu daalino dabiniyo shirqool ani haygu dagin dabiniyo shirqool ani haygu dagine ani haygu dagin duufaan jacayl dabaylahaga adoon igu diriqin waan ka durkee bal duciga beed daranyada kalgacal adoon igu dagin daalaco hanka daydayo mid kale daydayo wallahi niyo abwaankaan ugu jeclaanay heesaha ii sameeyo oo laxmiisna aadkaan u jeclahay waa saddex first waxa ugu horeeya waa abwaankeyga laxmiisteyga fanaankeyga Saciid Nuur Goori Jinne Shume waxaa soo labeeyo abwaan daayar صح وأدو داير عبد الشيد برجله عقلا اسمه هذا رئيس وأدقين صح ونفعين صح والله بس ما waxaan kaloo u jeclaa asna in la yiraahdo Cabdul Mudallib asna abwaana صح laxamiisna asna aad yariis u fiican tahay صح in shacab yar oo kale oo ninka sameeyay heeska xiisaha kala gacda sameeyo kale صح isma aad u xiiseeyaa laakiin qof kalsoon yahay exactly أنا waxaan kalsoonahay ninka la dhaho Saciid Nuur Goori Jinne Shume aad u jeclaa maanta xilliga la taagan يعني فانينت هو ولا صدى فين صح ما أنت مركي له قرت إن قفل أو على مسارتها صح أنا رأيي أنت مكاني أنكارلو إن ولا ارتيار ساس في بور مجاري لكن ما أنت أنا وحصله كده يمر ربه أو فنان قالي أكتر كه واللي بقالي ما هو مش الأحد تقالي كسومالي تقالوا صح يعني ما أنت مكي له فانينت تسوق عاد مكي له يعني أصله ما أنت وبقر فانينت الصومالي سبيكر وهلن يعني إن وعوالي آذن وكله وأصله والله وفنان قرني وفنان صومالي وفنان نبض صومالي جعل أصله هاي مرة بسيط يرلع وسوق هيسو عوالي أصله بل جت وتضع مرة ذاك قارة وحيدهن هذيك عليه مركا قبلها قبلين اللي أمانة سميه يقولوا كينا markaas waxa dhahay may gabdhaha Soomaaliyeed markan gudi soo amaaray kadib ayagu soo biisho marka waxa dhahay gabdhaha sharaf iyo cisi iyo mudan yihiin adduunka gabdhaha Soomaaliyeed gabdho lamida ma jiro sababtoo ah masha Allah nadaafada markii la laho xaq walba markii nolosha la laho jismaha markii la laho marka gabdhahan Ilaahay noo deesto heesku tina xoog soo qaato waa page from waaye صح أنا هاك سقط واي سيبك بدين أنا سقط واي مركب حوالي بحاول عصاين قبلها الصوماليات قبلها الصوماليات قبوي ينقبي قودي قبلها جيسك أفريكا سيدا أينو قرد دمر قرشيو أقون يجا وقاذوي مسانا قبلها كنا القبل كهيران قلقودة وياها عيال علي وشمبيلي ارسابا كيرو لك أكل زي قاعدين لا علي لما الجارة كويس أنا ما صدق إن وحاولها إيد ضوء إيده هيس ودني مقدم حتى أي يعني ده وطني مهدي أي سو ممكن وطني يقول حتى سو ما قف وطني مجرو وديف دف ودف كير يجرين وحواي ما موضوع لكن بقول كي بس عاش إنسان سومالي وطنيين ما صح أقول تبينا سو ما تقف بقربوس كذي
waddankiisa waxuu kule aniga waddankeyga UK maarata inta goorma hesho waddanka UK afacnina weliis xamar arkin wuxuu kuleeyahay xamar meel waa meel hogtay weliis ma arkin waxaa laga yaaba inuu dhowr iyo toban sano moogi ugu dambeysay 91 sax adoo in wax ku sheegro shalkii maanta waxaa jirtay hees la yihahdo hodan oo aad soo qaaday dad baa dee sida la iigu sheekeyey ama magaaladan ka dhex maqli waxaa la yidhi hodan cabdiraxmaan buu u qaaday heestaas bal arrintaa ii sheekadeeda heeska hodan xubigaygi horta heeska waxaa sameeyey abwaan qaaliyaa sameeyey abwaan maxamuud burhaanaa sameeyey oo ku nool waddanka maraykanka laxankan waxaa saaray saciid nuur guri jini shumi muusigana waxaa ku laray macalinkeyga qaaliga ah macalinkeyga aan jeclahay ustaadkeyga aabaheyga sax xasan cujeeri cajabi sax muusig u garaacay sax horta heeskan haddaan ku waramo heesaa ka horreysay sax heestaas hees ka horreysay waxay ahayd ku galaafan maayo haddii aadan garanayn wuxuu guurku mudan yahay had maad gaabsi diidaa adiga isgalladay oo gabankii waxaysad gacal u tiraadaan heesta hoteelada jawaad yani jawaabay ahayd alla aniga jawaabta waxba kama ogeyn ma garatay adduunyada ilaahay horta jawaab qofku waxa jawaab tahay horta waa qof isaga inuu caan bixiyo rabo oo yani dadkii bulshadii ku socon weysa sax hebelaa soo jawaabay laakiin wallahi ani igama ahayn jawaabna igama ahayn ninka ii dhiibane anigu Uganda joogo isoo wacay isagaana dhahay baasha heeskaas ayaa u baahana inaad iisoo tunto laxanka waxaa haya jini shumi waa inaad baasha heeska soo garaacdaa sax markaa saa u tuntanay gmailkii isoo dhig sax okay aan dhahay dee aniga inta xoogaa lacag idaranut heeskii laakiin fi ereyada ma dhuuxin sax qisa aniga u socoto waa u dhahay sax inkastoo hadda oo video soo geliyay waxyaaba kale aan ku arkay laakiin dhib badan heeskii marka sidii aan ku qaaday gmailka u dhigay subax waan seexday dowradii aan kasoo kacay magaalada yani hebel waaye baashi iidlo hoda cabdiraxmaan soo jawaabay iidlo ha henut taa gabdha qaarkood isoo waxay iidlo maxaa waay gabdhihii caysay horta gabdhihii ma caynin sax yani gabadhii asuuble gurigooda joogtaa guur loo haweystaa sida aan dhaqankeena dhaqankeena suu ahaa sidoo ahay ya sax qofkii xun asaaba caayanba sooma laakiinse gabadhii asuuble gurigooda joogtaa guur loo haweystaa taas caay miya may waa eraya jiro way eraya jiro wax jiro waay qofka dee naagta hoteelada saxaysa cid rabta ma laha waa sax ma garatay qofba qof sumcad loo raadina marka heeska marka heeskaas markuu soo baxay heeskan oo hodan oo soo baxay wixii iskowsaday isku soo begmay marka websada qaarkood ay soo qaateen waxay dhaheen iidlo oo hodan cabdiraxmaan raarigelintii oo baashi hodan waa fanaanad qaaliya waa fanaanadaan jeclahay iskuma jawaabi karnaba waa qof yani fankii iga weyn waaya sax maanta marka oo isku fiican lahayna mar waa walaashay mar waa maamadii fanka marna waa dumaanshidee oo nin saaxiibana qabo marka heeska kalena hodan waxaa usoo saaray waxay ahayd gabar Nairobi la degan oo nin saaxiibana u qabo hadda Muqdisho joogta oo la dhaho hodan cabdibiid heeska loo qaaday hees caadi u ahaa saasaa loo qaaday laakiin magaalada waxay ii geliyeen hodan ku reegalna heesta ku galaafan maayo marka habeen waxaa xasuustaa walaashii hodan markii la guursaday sax website waxaa lagu soo qoray iidloo dabaq iska tuuray waa sheeka yaab leh oo jajaban yani nafna kuma jirto kamana bixin bes magaalada ay soo wacday yurub laga soo xamar laga soo wacday waalihii la sheegay inuu ay soo wacday war waxay dhaheen iidlo ma tiideen noo dhiib rumaysan waayeen rumaysan waayeen odag waxaa lahay guurka muku maqlay jagmurtaaya ka cabalo dagwaxinaasaa la yidhi waya heesta marka hodan waxaan rabnaa bal inaad hal mar wax yar oo kamid ah bal aad erey ahaan noogu qaadiin okay hodane xubigeygiye xubkii wadnahaygiye xumbada dhiigeygiye miyaan hodane ku xoori karaa xaqiiq adiga ah xishooda mudano xurmiya xila iyo xalaal ku habboon xanuunka jacayl xisaab malaho dartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo adaan kugu xidhay xiskii amaan miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha alla yacizig waxbaan ka dhacay insha allah hadduu ilaah yihahdo haddaan dhimanaya insha allah inaan wadankii ku dhintaan jeclaha waya aada umahadsan tahay